بسم الله الرحمن الرحيم. أفضل الصومالية waxaan nasiib u yeeshay maalinka gaadhigaba oo jaamacadaha ka dhigo sidaa awadeed waxay soo maray dhibaatooyin fara badan iyo wanaag uu leeyahay horta quruxda waa laynoo sheegay quruxda afku uu leeyahay ku hadlaynaa waa ka weyn dhinaciisa ka magaalada waa aragtay loo gabayna waa aragtay dooni maayo inaan ku dheeraado afka waayo afka soomaaliga markaynu ka hadlayno waxaynu ka hadlaynaa baadisooc aynu leenahay baynu ka hadlaynaa yacni haddii suulka qofka marka faraha laga qaado la yidhaahdo qofka anigu gaar ahaan marka suulka laga qaado waxay muujinaysaa faraha layga qaaday qofnimadayda aan cid walba kaga duwanahay ayuu sheegayaa fingerprint-kaygu waa waxa fingerprint-ku waa waxa iga dhiga wax ka duwan xitaa aabbaha iyo hooyadii ee isiiya jiritaanka gaarka ayaan waan leeyahay haddii suulka raadka ka hadhaa uu yahay aniga baadisocdayda qofahaaneedka gaariya ahaa bulsho walbana waxaa u baadisoo caafiyada oo waxa inaga dhigay iminka cid ka duwan inteeda halkan fadhida waxa inaga dhigay inaga soocaya oromada iyo xabashida iyo ingiriiska waxa isu keenaya waxa weye af kaliyeena wada leen oo waa fingerprint-keedii bulshada weeye marka waa baadisoc wey horta waxa qiimaha la weeye waa identity-geeda aynu dadka ka duwanaa waxaynu ka hadlayno markaynu soomaali ka hadlayno waxaan jeclaynu sidaa u fahm inaad ka hadlayso baadisocdaada wixii ku siinayay yacniga inaad entity inaynu nahay bulsho adduunyada ku dhaqan oo layn ah dadka af soomaaliya ku hadla waxaan cid walba iska waxaynu ka hadlaynaa waa waxaa hadduu kaasi lumo baadisocdaasu hadday lunto inala weelolona waxaa aragteen aruurayoo dhasheeg ayaa aragteen oo baadisocdaasu ka khadkhashay oo aniga markuu ila hadlayo wuxuu odhanayaa aabbahay duray bay haysataa bi odhanaya aabbahay duray hooyaday duray bay haysataa shiihaase kood buu turjumaya ayuu turjumaya markaasaa waxaan odhanayaa anigu markanu annaga ma ila baadisocdii baa ka lugtay anigu waxaa odhanaya waa iyaga ee odhan maayo waa annaga anigu doolba markuu sidaa wada wax odhan kale waa ingiriis baa lay annaga maxaa leh kow ingiriiskii buu u tagaya wuxuu leen badan waxa soo leeyahay waa iyagu soo furay annagana maaha iyagana maaha beebi aadamka waxaa ka lugtay baadisocdii baa ka lugtay waxaasoo kale u soo baxaya canda dawlad een iyagana ahayn annagana ahayn uu soo baxaya haddii baadisocda lugto ila cudur baa sheegan lahay waxa qiimaha leh horta ayaynu ka hadlaynaa waxa qiimaha leh baynu ka hadlaynaa markaynu ka hadlaynaa af soomaaliga aan u soo dego wixii ku dhaca af soomaaliga iyo horumarkii si yaroo kooban waayo waqti badan waa wax dee waqti dheer lagu qaatay yacniga hadalkan la ii furay baan isleeyahay laba kelmadood ka dhex af soomaaliga wax ku soo biiray haddaan eego maxaa u kordhay maxaa ka dhacay haddii la yidhaahdo qarnigiina dhaafay ee 20-ka ala qarnigii 20-aad la odhan jiray waxa ugu qiimaha badan ee ku soo biiray waa qoraalkiisii aan wax kala garabay in la qoray yani waxaan u haystaa af soomaaliga marka taariikhdiisa laga hadlaya eventkii ugu qiimaha badnay taariikhdiisa afka soomaaliyeed waxaan isleeyahay waxay dhacday 27-kii oo waxay ahayd markii la qoray wax badan bay badbaadisay oo yacni waxay wuxuu u furtay albaabkii bay u furtay inuu sii jiri karo haddii la qoray caawana waa idinka hadlaya waa idinka caawa buugaygii gargaadinaya de waxa qoray horta wixii ugu muhiimsanaa taasay ahayd oo yacni haddii lagu tabco wuu noqon karaa wax dee socda
usii socon karaa marka laga bilaabo dhacdadaas waxay kaloo usoo kordhisay af soomaaliga wax kaloo qiimo badan erayada af soomaaligu ka kooban yahay vocabulary-giisa ayay hodmisay dhacdadaas hodan bay ka dhigtay markii ugu horeysay baa lagu dhigtay afka lagu dhigtay juqraafiga oo lagu dhigtay xisaabta oo lagu dhigtay sayniska lagu dhigtay oo lagu dhigtay maadada markii ugu horeysay baa xafiisyada lagaga shaqeeyay markii ugu horeysay baa qolada qaanuunku isticmaashay markii ugu horeysay baa qolada dhaqaalaha isticmaashay markii ugu horeysay baa la isku dayay in loo sameeyo eray bixin cusub loo sameeyo field qolo waliba si afkii loogu dhaqmo eray bixin baa dhalatay haddii eray bixin cusub soo biirtana afkii waxa tiradiisii baa kordhisay tiradiisuna tayadiisay saameynaysaa markaa waxaan isleeyahay wuushan yani intaas shan jeer buu ayuu laba jibaanbay marka laga eego xagga taranka erayadu ay laba jibaan markii la qoray ayuu taraba oo kumay jirin yani afkaarta ah conceptiska ah caruurteedii ay dhigatay xagal oo arga u taqaano yani markii xisaabta dhiganayso waxa negative oo ay taban u taqaano waxa positive ka ay togan u taqaano waxa even numberka ah oo ay u taqaano kisi meedaba ay u taqaano waxa oodka ah oo numberka oodka ay u taqaano kisi ay waxa bilaabay yani waxba ku soo tiradiisi baa badatay laakiin wuxuu ahaa wax socda qoraalkiisu markii la qoray wuxuu ahaa wax socda oo eray bixin baa socotay markii dowlad uu leeyahay ay jirtay wuxuu ahaa wax tarmaya oo koraya oo kobcaya oo bilaabmay odhan maayo uu dhammaystirmay waayo dhaliilihii waayaha hay-aad haysu mahadinina balaayo wax kalaa soo wataay waxaa bilaabmay inuu yaa madaxa la soo yaro kaco oo yani ayaa bilaabatay waxaa dabeed ku dhacay waxa soomaali afku kama duwana afku wuxuu la arag yahay mar walba af kastaa wuxuu la arag yahay cidda ku hadasha ayuu la arag yahay dakharada ay qabaan dadka af soomaaliya ku hadlaa buu qabaa burburka ku dhacay buu qabaa hadday dabalgo-aan lagula dabalgo-ayo isuma arkayo mustaqbal dheer uu leeyahay kamaan maanta maal sida aynu ku jirna marka aynu eegno mustaqbal dheer uu leeyahay maanta kama sadeeranayo waayo dadku jira waxaa ogaataan afkeena tayadiisu waxay ku af kastaba tayadiisu waxay ku xirantay dadka ku hadla jasiiradda yaree maanta aynu ku nool aynu caawa fadhinaa waa jasiirad yar oo kooban weelka arkay intay leeg tahay markay baaba ku jirto caalamku wuxuu ka hadlaa export iyo import buu ka hadlaa waxbay diraan waxbay soo dejiyaan jasiiradda yaree ingiriisku waxay export garayso waxaa ugu weynaa afkeeda the export their language weyn ingiriisku muxuu tuleegay afkiisu gaarsiin waagis bolgolay jasiiradda ayareenka halkaysaan ay tahay ku nool ayaa caalamkoo dhan afkeeda ku hadlaa maxay ku timi dadka ku hadlaa dada waxay muujinaysaa dadka ku hadlaa inay dad yihiin waan bal waxba iyo cid kale ku hadli kiin هو يا ويتسلم